مسؤولين حسبك معارض كهيوعد أو ما أنت كلها الله يحرط ده حسبك سي تلفزيون كعالمي سمسة تي في أي سي كل جهري ميت كلن ودوان وزير كأريمها دبد الصوماليلان محمد عبد الله عمر كقريب كلاي دلك كينيا ولا كهذا يسير دقال لوجور لها دلك الصوماليا وعن السي كل عن باريين كلن كاس يجون السلو وين كموتي قابك وكقريب كلاي شركة سي أي تلمامين إنه حصل دقي سمعة الصوماليلان شركة دقالها اللوجو ورورين أيو دلك إن شارك النهاية الصومالية اللوجو قبتي دلك كينيا مقالة نيروبي سي أنقر سعودي هين إنه قريب كلاي أو عدانة أو بديرة وزير كأريمها دبد محمد عبد الله أسوق ولي بكم تلاقي كنا في دقيقة كرسيكا قبل كم إذا dalkii ay qaadaceen shirka London lagu qabanayo ee Soomaaliya waa ayaan daro oo arrin iska hor imanaya oo siyaasad aad iyo aad u murugsan oo qalloocda waxaan ay arkayaan dadka reer Somaliland waxaad moodaa inaanay dadka xukuumadda maanta gudaheeda ku jira xukuumaya inaanay arkinba koos waxay warbaahinta waxa laga soo deynayo inaanay daawan waxay ku caan baxeen dafiraado ay bariinsadeen oo khajiraad la'aana waxay ku caan baxeen in ayagu wixii ay doonaan ay u haystaan in laga dhageysanayo ama laga maqlayo ama sida ay u yiraahdeen loo qaadanayo waxaan cambaareynaynaa oo waliba si weyn u cambaareynaynaa hadaan nahay xisbiga UCID shirka dhaqaalaha loogu ururinayo Soomaaliya ee ka dhacay dalka Kenya عاصمتيسا نيروبي كاسو سلما فلانا لوغو دخ arkay wasiirka arrimaha dibadda Jamhuuriyadda Somaliland Maxamed Cabdilaahi Cumar iyo Maxamuud Jaamac Sifir oo ah safiirka Somaliland u fadhiya Kenya shacbiga Somaliland dibad iyo gudaba waxaan u cadeynaynaa inay shirka ka qayb galeen iyagoo متليا قبل كمدا قبل هذا الصوماليا وحى لكن كأرجوستي هبلها الرئيس الصومالي لان على كالصومالي أنت تشين مركو صباحي هوي كواسا كأرجوستي طبعا يدو يسكتوري وأيدنا كوير هذين محاضر توري صوت عند حفرستي قاعدة على كوشك شعبي هو هذا فقارو يمع دالي إن بدأ بالشدة السومالي لأن واحد كسر دعي إن دولة محمد أحمد محمد سينايو حسبي كل مية إلا إيو حسبي لماذا مركي حسبي هاين إن كشغالين يعني سيستم صومالي يدب لي سوسو عليا فذاله وحنا دليلوه مركي حكم كقبتين طلابي كوادي قادر واي دستور كي قضبة كميدا أي كسارين وبدل كسبيان يقول كسايا أما أوصي كذا إني تلمان تدعي وكلا كتلابسان Somaliland ayaa hore u qaadacday shirkii 7 May ka furmay dalka Britain kaasi oo dhaqaale loogu ururiyay Soomaaliya ilaa hadda lama garan karo waxa uu shirkan wasiirka arrimaha dibadda Somaliland kaga qayb galay dalka Kenya uu kaga duwan yahay kii hore Somaliland u qaadacday Mukhtaar Ismaaciil Cali Samsa TV Hargeysa